كل هذا البدن ده صحفتي بعد ما يصير لكن رنتي إنه دابة وانسوس السعودي أو hargaysa waan ku taaminani maado waana magaaladeedii waxaanan aaminsanahay kulli xilligan ka heesay daa'imka ma ahayn oo waxa weeye taas taariikhda ku jirta inaan mar labaad u soo noqdana de waan ku qasbanahay oo waa magaalo fankayga abaal weyn ku leh fanka Soomaaliyeedna abaal weyn ku leh kulli de anigu nin fanaan aan siyaasi may kulli aniga fankayga waxa u roon inaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u heeso Somaliland iyo jamhuuriyadda Somaliland iyo macaasimadeeda hargaysa waxay laf dhabar ka tahay ummadda Soomaaliyeed fankaygana laf dhabar bay ka tahay de kulli dadku de kulli qofnaan caana marka tahay dadku waxay rabaan de way ka sheey karaan laakiin xaqiiqatan marka laga hadlo anigu afkii aan ku iri hooygii murtida iyo hooyadii abwaanka wax ka dambeeyo ka daba oran karo yaasay jiray marka taasi waa xagaas taa markaan ka imanno waxaan u mahad celinayaa runtii dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay dhamaatikayga oo uu horeeyo walaalkay iga weyn ahna safiirka Soomaaliland u jooga Djibouti kawaaliye oo leeyahay runtii aad iyo sariib aad u mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha cigaal international airport oo si fiican noogu fududeeyay waxaan u mahad celinayaa shaqaalihii xerada diyaaradda ee Djibouti oo runtii si qurux badan iyaguna noo soo safray waxaa kaloo mahad celinayaa dawladda Soomaaliland oo uu mas'uul ka yahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Saylici oo runtii shaqo qurux badan iyaguna nala qabtay waxaa kaloo mahad celinayaa dawladda Djibouti oo si fiican noo soo safarkaas noogu soo dirtay runtii aanu de fanaan waan ahay laakiin haddana kulley bulshada isku xiristeeda fanaaniinta ayay shaqadooda tahay jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda Soomaaliland waa dad walaalo wada dhashay inaan isku xidhnana waa shaqadayadii waxaan aaminsanahay inaan shaqadayadii uma gudanayna walaal horta anigu qaran uma aqoonsado qaran jirina ma baabi'iyo fanaan baan siyaasi ma ihi meel qaran lagu yagleelo ama qaran lagu sameeyo waligeed ma fadhiisan shirar qaran waligeed ma fadhiisan siyaasi ma ihi qaran ma burburiyo ma garanaysaa ma ihi jabhad ma ihi nin fanaan aan ahay Soomaaliland waa waddankaygii cid iga xigtana ma jirto